وحويا هيل در أيا إدين سو صعدا ولا لها هيل در والله ويسو صعدان وبالله ويسو صعدان والله ويسو صعدان طبعا كون أو عيدا كمان دوسة وقرايد كفر عشاء وبرت على شداء أيا يدكو سوى جهاني وحي هلو دياريو آغا قودي هلو بانيو ميلها يكد قال قلي لهاي waxay ka soo degi doonaan airportka weyn ee gobolka Togdheer gaar ahaan degmada Burco walaalaha qabiiliga ah maleeshiyaadka dalkooda dadkooda iyo diintooda difaacaya ama ha ku sugnaadaan Shiidali ama ha ku sugnaadaan maskax boqole ama ha ku sugnaadaan Buuhoodle iyo meesha la yiraahdo Qurlugud waxay idin ku soo wajahan oo soo socda 10,000 oo walaalihiin ah oo dir ah oo waliba dir koonfureed ah iyagoo hubkoodii isaanadoodii iyo wuxoodii iyo direyskoodii iyo labiskoodii iyo sahadoodii wata aan waxba idin ka baahnayn burcay ka soo degi doonaan wixii aan soo bartay waxa maanta ay doonayeen idin ka faa'iideeyo waaye anigu sikriyaa shakhsiyan markaad wax sheegaysid wax la sadaqada gurigaaga laga goodiniin gurigaaga laga bilaabaa waxa sheega iyo waanada naftaada laga bilaabaa anigu waxaan diin bal qaaday qoladii mucaaradka ahayd reer wadani hal wax baan idin sheegay maanta diin bal qaaday sax iyo qalad talaabo kasta oo dambe oo aad qaadaan inaan naqdin doonin oo aanan duri doonin oo aanan waxba ka sheegi doonin oo aanan caayi doonin waxaan doonayaa walaalaha ama maleeshiyaadka qabiiliga ah ee SSB waa Sool Sanaag iyo Buuhoodle soo dhawaada kulligiinba السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته aad baan idin wada salaamayaa Somalilanderka xashwada qadarinta iyo maamuuska mudan meel kasta dunida calaadiisa joogtaan caawa waxaan doonayaa halkan in yar inaan idinka dabageeyo oo muhiim ah saad uga warqabtaan had iyo jeer anigu caan kuma yihi laygumana yaqaano aaladan live-ka mana yihi tiktoker iyo youtuber iyo facebooker midna waxaan idinkala hadlayaa profilekayga caadiga ah Sikriya Nuur Saajin maaha mid laga macaasho ama views laga raadiyo maaha mid aan idinku kalifayo ama idinku xujeynayo share iyo like saara waa mid danta guud ee dalka iyo dadkayga amar walbaan saado inta taagtaada iyo tamartaada uga faa'iide taasi waa taa waxaan doonayaa walaalayaal inaan arrimo yar la wadaago aad muhiim ah maadaama anigu aan xoogaal wax badan oo u ahay shacabkayga iyo dalkayga qurba joog iyo qolqol joog baan wakiil u ahay kuwa Soomaaliya jooga kuwa Djibouti jooga kuwa NFD jooga kuwa Ethiopia ee walaalaha direed ama irir Soomaalaba dheh ama walaalahayga reer Somaliland meel kasta dunida calaadiisa joogaanba marka waxaan doonayaa inaan kolley war la qabaa xiise male baan maranayaa haddana waxaa dhici karta in intiina badan aydan wax badan aad ka mashquushaan maadaama anigu aan si xilkasnimo aan howlaha qaar isugu xil saaray inaan wixii aan isdhaahdo waa muhiim inaad la wadaagto walaalahaaga iyo shacabkaaga iyo muwaadiniinta Somalilanderka dhabta ah aan idin soo gudbiyo horta marka ugu horeysa bal aynu shaydaanka iska naarno aynu faatixada akhrisanno aynu ilaahay ku shukri noqno maanta maalin ka fiicanahay haddayna reer Somaliland wallahi ma jirto maanta maalin ka wanaagsanay keenii xunshada ahaa markuu dhagax ku dhaco kala labaadna ku soo socdo dareemayay iyo keenii tukaha ahaa ee markiisa horeba iska update garaysanaa feejignaa aynu soo gaarnay meel kasta oo aynu ku noolay dunida daafaheeda waa mid ilaahay loogu mahadnaqo oo ilaahay lagu shukriyo marka waxaan leenahay aynu ilaahay ugu mahadnaqno oo aynu ugu shukrino war wanaagsanna waan idin hayaa aad u fiican warkaas waxaan anigu dawladdu ma hayay waxaan u hayaa dadweynaha reer Somaliland waayo warna waa war dawlo warna waa war dadweyne waxaan maanta idin sidaa war dadweyne
وآه إذن فرحت كليا وعجيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. horta marka ugu horeysa ilaahay baa mahadle waxaan aad iyo aad u bogaadinaya ugu horeyn ragga uu dhagaxu ku dhacay kii labaad isagoo kusoo socda baraarugay madax dhaqameedka ah abtigay cismaan ow maxamuud buurmadow iyo in adeerkay cadde gude labadaa oday waa laba hogaamiye waa laba oday oo muhiim ah dadka iyo deegaankaba muhiim u ah waa alxamdulillahi rabbilcaalamiin iyagu inay iskood iyo waqtigu inuu saxay ay ku baraarugeen maanta isagoo dhagax ku dhacay kii labaadna uu ku soo socdo oo yidhaahdeen dadkayga iyo dalkayga waanu meel baan uga soo wada jeednaa la dareen baanu nahay arrintaas waxaan idinka codsan lahaa bulshada iyo shacabka inaydaan uga falcelin qaabab fool xunoon arkay baraha bulshada looga falcelinayo laleeyahay waa adigii shalay saa lahaa waa adigii maanta saa lahaa waa adigii duraad saa lahaa dadku waa bini aadamkuna waa khadaa wuu qaldamaa aniga iyo sikriya maanta somaliland naf iyo dhiig iyo maalba u huray shalay tobanigii caare la joogay buuraha taagnaa dee bini aadan baan ahay markaa fikirkaygii caqligii yaraayo raqiiska ayay igu jiray wuxuu siiyey inaan halkaa tago laakiin noloshayda waan iska qoomeeya waxaan sacdaa noloshaada intaad jirtay taariikhdaada dhowrkii biloodaad la joogtay yaa ka jira iyo waxaad ku hadashay aad bay dadkaygu lagu mahad celinayaa way igu tixgeliyaan waana igu sharfaan waayo qofka bini aadamkaay maanta sibuu wuxuu arki karaa birina sibuu wuxuu arki karaa marka waxaan idin leeyahay aynu waaqica ku noolaan yaynaan odhan hebelow sidee bay dadku u midoobi karaan ama midnimada dadka reer somaliland ay u dhalan kartaa haddaynan hebelow adigii shalay saa lahaa waa adigii doraad saa lahaa waa adigii tii ka horreysay saa lahaa noloshu maalinba waa cayn maalinba waa nooc maalinba aragtidaadu murti soomaaliyeed ba waxay tahdaa gugii ii kordhaba gows baa ii soo baxa waa caqliga waqtiga iyo waayuhu waxay ku barayaan waxyaabo kala duwan marka waxaan dadkayga iyo bulshadooda sharafta iyo cisiga iyo karaamada leh aan ka codsanayaa ciday doonto ha noqotee in ninkii shalayto aragtidiisu qalloocnayd maanta hadduu saxo inaad u shafeeco qaadaan oo sidiisa aad ugu dhaqantaan ood boogaadisaan oo dhiirigelisaan ood berber istaagtaan sida anigaba ii berber istaagteen shalay aniguba waxaan ahaa fuqash kalkaal baan ahaa shisheeye kalkaal baan noqday dhowr bilood tii kumaan khasaarine tacliim iyo waaye aragnimo iyo xaqiiqda dhabta ah baan kusoo ogaaday maanta qof kasta oo mukulaal mininkiisii jooga ah oo jiirhan ku weynaaday oo hargeysa iyo burco iyo berbere aan dhaafin iyo boorame iyo laascaanood waan ka aragti fogahay waayo waxaan soo gunta iyo gidaarkiiba madaxa kusoo dhiftay taasina waa ta keentay maanta inaan hurmoodeedu ku noqdo oo aan idinku hogaamiye aragtida saxda ah ee dhabta ah halkay ay soomaaliya idinka taagan tahay halkay koonfur idinka taagan tahay halkay puntland iyo huwantu idinka taagan tahay wixii aan soo bartay waxaa maanta aan doonaya inaan idinka faa'iideeyo waaye anigu ka sikriya ahaan shaksiyan markaad wax sheegaysid waxa la sadaqada gurigaagaa laga diiniyan gurigaagaa laga bilaabaa waxa sheega iyo waanada naftaada laga bilaabaa anigu waxaan idin ballan qaadaya qoladii mucaaradka ahayd ee reer wadani hal wax baan idiin sheegaya maanta idin ballan qaadaya sax iyo qalad tallaabo kasta oo dambe oo aad qaadaan inaanan naqdin doonin oo aanan duri doonin oo aanan waxba ka sheegi doonin oo aanan caayi doonin oo aanan cambaarayn doonin warkaas ba idin dhacay xisbiga waddani anigu cidna kama soo horjeedo kulmiyana kama soo horjeedo laakiin waddani si gaar ah oo xasaasi ah ayaan ku durayay saasina waxay waan ku kala aragti duwaneyn halganka iyo arrimaha socda ayaan ku kala aragti duwaneyn waxaanu isku seegnay martidii ila socotay ee walaalaha reer muqdisho aan hargeysa keenay inay intaasoo mas-uulo ay warbaahinta usoo fadhiistaan oo intaasoo dhaqan usoo fadhiistaan dhammaantoodba ay taabacsan waddani wax tegay tiigsimaad ma leh maadaaman caawa aan leeyahay ujeedkayga ugu weyn uu yahay war wixii tegayaan laysu raacay anigu waxaan idiin sheegayaa reer waddaniyo anigana jin dagaagay baad ii bixiseen anna waxaan idiin bixiyey ibliis dagaagay waynu kala joognaa ilmaadeerayaal wixii dambana wixii aad shaqaysataan baad leedihiin ama waan idin taabici doonaa waan idinla shaqayn doonaa ama waan idinka soo horjeedi doonaa halkii baad ka wadi doontaan haddii isbeddel yimaado oo wax dhaco xilli doorasho la gaadhana wallaahi waan idin taageerayaa inaanad biduuni shuruud
oo waxyaabaha dadka iyo dalka sidii hogaamintiisa aad ku kasban lahayd haddaad waajibkeeda iyo dariiqeeda aad gudataan waaba kaa hogaamiyihii la odhan jiray cadde gude ee shalayto lookalka ahaa ee garxajis aragtidiisu ay taagneed maanta aragtidiisii kortay ee ah abaanduulaha anigu maanta waxaan u aqoonsan lahay cadde gudena waxaan u aqoonsanahay abaanduulaha guud ee somalilan abaanduulaha guud ee somalilan hogaamiyaha guud ee somalilan ee dhaqanku waa suldaan cadde gude waana ku taabici doonaa waana kula shaqayn doonaa sidaa uu maanta isba ka dhawaajiyey buur madow laftigiisu ma yaraysto ka dhici maayo buur madowna waxaan leenahay dalkaagii dadkaaga maanta aragtay markuu dhagax kugu dhacay kii labaadna kugu soo socdee tuka noqo oo feejignow oo bahdaada dhaqanka iyo doorkaad leedahay hogaami intaasi waa intaa ku dheeraan maayo waxaan doonayaa walaalaha ama maleeshiyaadka qabiiliga ah ee SSB waa sool sanaag iyo buuhoodle walaalaha qabiiliga ah maleeshiyaadka dalkooda dadkooda iyo diintooda difaacaya ama ha ku sugnaadaan jiidali ama ha ku sugnaadaan maskax buqle ama ha ku sugnaadaan buuhoodle iyo meesha la yidhaahdo qurlugud waxaa idinku soo wajahaan oo soo socda 10,000 oo walaalihiin ah oo dir ah oo weliba dir koonfureed ah iyagoo hubkoodii isaanadoodii iyo wuxoodii iyo dirayskoodii iyo labiskoodii iyo sahadoodii wata aan waxba idinka baahnayn burcay ka soo degi doonaan wiigan mooya wiiga soo socda waxay ka soo duuli doonaan ay ka soo bixi doonaan airportyada gaarka ee khaaska u ah beelaha dir koonfureed waxay ka soo duuli doonaan 10,000 hadda waa 10,000 ciyaar mooda waa 10,000 waxa dawladdu sheegmay warkaygan war dawla maaha waa war qabiil wuxuu u socdaa maleeshiyaadka difaaca qaranka dalka iyo dadka ee SSB nimankaasi 10,000 bay ka kooban yihiin qalabkoodii iyo agabkoodina waa u dhammaystiran yahay waana dir koonfureed waxay ka soo bixi doonaan ka soo amba bixi doonaan airportyada kala duwan ee deegaanadaas iyo qabiilkaasi leeyihiin sida afbarwaaqo xara dheere mayxeraale afbarwaaqo iyo markacaddi muqdisho ka soo duuli maayaan way qorshaysnaayeen xiriyo muqdisho ah ayay diyaar ku ahaayeen laakiin maanta waxay ka soo duulayeen deegaamadii iyo airportyadii gaarka beeshu ay u lahayd dowlad ku halayn maysaan oo cid kale ku halayn maysaan waxaa laydinka rabaa dadkaas sidii aad waxa weeyaan hiil dir ayaa idiin soo socdaa walaalaha hiil dir wallaahi way soo socdaan oo bilaahi way soo socdaan oo tallaahi way soo socdaan 10,000 oo ciidan kamaandows ah oo garaadka ku fadhiisha oo birta calaashada ayaa idinku soo wajahane waxay ha loo diyaariyo aagagoodii ha loo baneeyo iyo meelaha ay ka dagaalgeli lahaayeen waxay ka soo degi doonaan airportka weyn ee gobolka togdheer gaar ahaan degmada burco arrintaas waa arrin confirm ah soo dhawo Mustafa waa arrin dhab ah waa arrin xaqiiqa oo aan loo noqonayn nimankaasina ciidan qaranna ma yaqaanaan dowladna ma yaqaanaan waa hiil walaal waa hiil dir waxay ka barbar dagaalami doonaan maleeshiyaadka duufaan iyo SSB sool sanaag iyo cayn aad iyo aad baad mahadsantiin maanta live-ka ma badin doono waana idin wada salaamaya dhammaantiinba khayr iyo baraka idin rajeenaya salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh